dhaqo alaab dhaqo gurtiro mooyaar dhaqo sidaan ay maalin kasta ku bilowdaa nolol maalmeedkeeda shaqada iyadoo aan meelna ku ogeyn waxa ay maalintaasi qaban doonto abay dhar dhaqo martimiya hortaada la imaado ay dhar dhaqo marabna dhaheena maxaa dareemaysaa haddii subaxii gurigaada aad ka soo tagto adigoo ujeedadaadu ay tahay in caruurtaadu waxa ay cunaan aad u keento balse aadan ogeyn meel aad ka soo heli doonto oga dhar dhigo injeeda siin shaqee may la raayis idun tartiib iyo taagan rooga anin shaqin jeeda shaqee dhar dhigo injeeda ha dabcan way adag tahay maama aamino waxa ay 7 caruura subax walba u jarmaadaa inay qutulyoonkooda soo dhiciso iyadoo u dhaxgasha bulshada caasimadda Muqdisho waxa ayna ku shaqaysataa xoogeeda sheeko ayaan idinkaga heynaaye nala soo socda waxay dhabarka u ridatay mas'uuliyadda 7 caruura oo ay hooyo u tahay aabahoodna ay xilli hore kala tageen salaadi ilmaheeydi oo wax qof siinay u lahayna guriga soo taga xaafadahan soo gala dhar dhaqo alaab dhaqo gurta tiroodeeda aqoo yaa raba dhaha mar waa hela marna waa weyna naaga mar hela $2 amba $1 ibar amba $3 ugu soo dhaqa amba maba soo helay ilmaheeyse ku nooliyeen ilaa ka mas'uul ma ku warqabi siyihiin ma ogi 9 saac imaana shaqadan waa shaqo aad u adag marka loo eego raadinteeda haddii qofku haween yahayna uguma sii jirto oo waxay kala kulmi karaan dhibaatooyin ay mararka qaar ku wayn karaan noloshooda siday aamino inoo sharaxayso mar ay la kulantay in naf ahaanteeda dib loo geysto intii ay shaqadani ku howlaneed mar oo aan dharali dhaqa soo galay oo li soo garaacay hada waa badan tahay oo nin aligu toosay oo baangad ay soo qaatay guriga faq iska sii aan ka soo arday ilaahay soo badbaadi waa buuxda nin oo ani adi soo socdo wajhumo igu soo socdo u ekaay waana ka soo arday bulshada Soomaaliyeed ma ahan kuwo isku damqasho ah dadka qaar ayaa marka ay arkaan dadkan oo kale u fidiya gargaar iyagoo hawshan duruuftu ay baday ku dhiirigelinaya way imaatay islaamnimo u caawiye bas dharka yalaata iyo dhaqan dhahe walaalay wax baan ku siinayaa ani meeshii ka imaatana ma ogi ilaa si loo joogo way imaataa waa iska caawiya dadka kale oo bulshada kale si oo la dhaqmayaan ilaa hadda ma ogi dadka barkiisa qasaala soo gatay ana qasaala ma soo gadanay waxa uu yeelay masaakiinta kunkeeda ka baxay masaakiinta ilmaheeda caanaha oo gataane saas ba u yar islaamnimada saas ku jirta moogtay dadka dhanba qasaalada soo gatay imoota daadha waa dhibkeeda ay leedahay moogtay ani waxa qasaala u soo gada way ina masaakiinta caawiyo hooyo Aamine Ibrahim Isaaq ayaa ugu dambeyntii shacabka Soomaaliyeed ka dalbatay inay caawiyaan oo ay waqtigan garab u fidiyaan waxa ku asnaa in meel fiican oo ifidisiyaan ugu dacooyo anigana meesha joogan anigana ugu dacooyo raba haweenka Soomaaliyeed waa laf dhabarka guri walba oo qoys Soomaaliyeed ku nool yahay arintan ayaana ku tusinaysa siday hooyooyinkeena noloshooda ugu horayaan caruurtooda Safiya Ismaan Cabdulle Shabeelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxa kamida waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier